بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا وعنا ونكسن دمانتين بها ومركلة إيا برنامجكينا وايا أرق برنامجكينا وحن كسو قادنا dadka waaya aragga u ah nolosha haday yihiin waayeel dad dhexdhexaada iyo dad dhalinyaro oo laftoodu la kulmay waxyaabo raad ku reebay taariikhdooda ama noloshooda toddobaadkan haddaba waxa halkan inoogu martiya oo barnaamijkeenan aynu ku wareysan doonaa Mujaahid Cabdisalaan Maxamuud Jaamac oo loo yaqaano Cabdisalaan Turki Cabdisalaan Turki waa shakhsiyad ka caana Somaliland waxa uu kamid ahaa halgamayaashii xoreynta ee wadankan duruufo kala duwan ayaan la kulmay intii waqtigaasi iyo waayahaasi faraha badan leh oo ku dhex jiray marka Cabdisalaan anoo ugu horreyn kugu soo dhaweynaya in barnaamijkan in Cabdisalaan bal waxaad nooga warantaa adigu goorma ayaad dhalatay marka ugu horeysa halkeed ku dhalatay bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan ku mahad celiyo adiga oo igu martiqaaday barnaamijkan marka labaad bahda TV-ga iyo dhammaanba wasaaradda warfaafinta inta ka bacdi su'aashaadii waxaan dhashay 1956 halkaad ku dhalatay markaa waxaan ku dhashay Kenya waxbarashadaada ugu horeysay halkaad ka bilowday waxaan ka bilaabay wadanka waxaa imid wadanka xorriyad qaatay 1961 horaantiisii waxaan bilaabay waxbarashadeedii quraanka hargey burco yaan ka bilaabay dugsiga hoose dhexe iyo bar ka mid ah dugsiga sare waxaan ku dhigtay dugsigii macadka loo jiray burco secondary waxaan ku dhamaystay xamar allah idii xamar ayaan ku dhamaystay marka secondary aad dhamaysay maxaad samaysay halkaad ugu gudubtay markii aan dhamaystay secondary hal allah idii xamar ka baxnay waxaan qadarkii qoray group 6 oo la qaatay oo markaa la qaatay ayaan ku jiray ciidamada leeliska loo qaatay waxaan lagu qaatay November bay ahayd 7deedii baan ka dhoofnay oo mootani Russia ruushkan soo galay 1974 in markaa in Cabdisalaan Turki ma ciidanka militariga ayaad markaa ciidanka qalabka sida deetana halkaas waxaan ku soo bartay waxaan ka mid noqday markii aan soo noqday dagaalkii 77kii ayaan galay halkaas oo aan jiidan jigjiga ku horeynay ciidankii galay ahaa markan jigjiga la qabtayna oo la soo celiyay hargeysa la keenay waa la raray wadada tan boorame yaanu qaadnay qolijeed ka marayno iyo haddana bidix loo celiyay meel la gogta yaanu ka dhacnay qolada ka mid ah aala أتشجارة هل كسر حرر كعبار بالنجارة أنت هناك بحين دجال كإثيوبيا بالتروفيسي تشويسي بال أدوسو كوبانيا جود مر نجسي حالته سهد مركز إنك واحد دجال كاسيرتا إذا حاجة دك صوماليات حدي اللي هذا أودهان حدي اللي جود دجال جيل لها سيد إذا حال لها وجيل لها إثيوبيا أيام يبقى صلها لكن واحد عيدا لفجي أو لا كلا رهيبي ciidanku ku shaqeeyo la soo art waxa weeye wax shax farshaxan iyo ku socda waa la kala guray wala jabhadiyay qorqori baa la kala dhigay markii aad wada galeen markii dambena 77kii bishii June ay noqotay markii goday gashay ayaa SOS dhacday in la galo markaan ciidan faqmay dadana halka waqooyiga waxa ugu horeeyay dhinacan dirdhabe yaani iskaasi xumada iyo dacwati dib loo soo noqday halkan aagan jijiya la galay jijiya markii la galay halkaasi waxaan ahaa group la socda guutada tobnaad Axmed Naaji watay halkan la yiraahdo Arooreyska iyo dhinaca garab cas ayaa labada ciidan ka dagaalamayeen ciidan saddexaad oo jiifada maray dhinaciisa oo meel la tuur qeelo iyo ku dhacay dagaalku soo suuxii habeenkii bilaabay jijiga waan arkay laba anigu dagaalku ugu dambeeya waxaan koodii September bay helay 3 aan galano jijiga markaan galnay guutadaas waxay wadatay baabuurta la beepayada gaashaman shanteedii horta waxaan ku galnay madaafiic lagu qabsaday Arooreyska lagu qabsaday ayaan ku helay meesha wadaas doona oo qori ah soo furanay magaalada haysana deetana waxaan u dhaxay dhibaax adag waxaan soo galay ciidan wata dababado
dib bay noo ribaaxeen nimankii wadanay bebayada xabad kala mana soo bixin meesha waxaan soo istaagay meesha la cayl xamaar halkaas soo degan deetana ciidamadii kalaas ku yimid aagishe muddo ka bacdina libaaxa baxdana u dhacday madaaficdii aag lasu keenay meesha oo waxaa ka mid ahaa 4 ururoo daasodona 3 ururoo 85 ah BMkii tradishii wax walba meesha yaaleen maanta waxaan ahaa gruubkii madaaficda difaacday marka laga yaacaba koox ciidahan ku difaacay ayaanu hayn saakiil badan ba halka maantaasiyo ku burtay waxaan garanayaa urin dhalo madaafic oo laba malaawa walaa in haayeen nin la Bashiir iyo Daahir Gurxan la yidhaahdo ayaa ku dhintay oo isku ataliinta ku ku ahaa urkaas taanka soo maray maalin bay ahayd waxaan sanahay ciidan dee adoogayadoo watay tigirka ayagoo faramaran taanki lagu soo wararay waxaa naga riday ururkii birshax loola jiray oo nin loon jiray daahir dheer oo sheekhaasha watay ayaa dhinacaa garab case dhinaceeda naga yimid ninkaasaa goor dambe garalmadii gurmad nagu yimid oo naga difaacay oo dib u celiyey taas baa maalin bay ahayd waan ka baxnay in hagaag aakhirkii ciidankii xilligaasi ay soo jabeen dib ayay u soo noqdeen adigu markaa maxaad halkeed uga sii gudubtay halkaa waxay ahayd waqtigii la soo noqonayay 78 March waxaan joognay xer hoos meel la kumburjaagteeda صباح waxaa taasina la qasbay ciidamadii dhabarkayga ciidamada la soo dhigay horta ciidamada dagaalamaya waxaa dagaalamaya oo wada tiinkada ama boobtangiyada iyo bebayada waa kubaan dagaalada xagar wala waa Jarmal ka bari madaafiicda waxa garaacaya lagu garaacaya waa Yaman infantrygu ama military kale waxa weeyaan Ethiopian iyo kubaan soo jira dabeetana adigu soo bixi qodobka soo baxday baan hayay dhinacan beekul dib wadada soo maray ka baxnay meesha la gaaska koobaad qodobka asaastay baan lahay waxaan degnay meel la yiraahdo Chiid agteeda oo la yiraahdo Himal maxalli maal iyo Himal farayd halkaas aan degnay markii tii hore oo doox yar ah markay ahayd bishii June ayaa waxaa noo yimid wasiirkii gaashaandhiga Cali Samatar iyo hogaamadii ciidamadoo dhan marka anu asalkayga waxaan ka tirsanaa hogaanka warshadaha maxamed xaashi lixle ayaa xukumayay halkaasay u yimaadeen maxamed xaashi markuu arkay halka maxaa ku dhago waxaan deeqan lagu hayaa bartiga bidakayga lagu dhigto warshadii kabida Hargeysa ayaan ku soo noqday intee mid ka shaqeynaysa markaa warshadii kabida Hargeysa ilaa laga isteetiga ka baxay warshada kabida Hargeysa marka 28 baad SNM ku beertay SNM birtaankeeda waxa ka hor gudaha ka jiray wali gudaha lagu asaasay ee kamid ahaa Hargeysa joogay toos aniga waxa ii yimid Maxamed Xaashi Lixle oo markaa hogaanka xukumayay ayaa ii yimid 9 iyo 9 dambe December baahid dabeetana wuxuu November baahid wuxuu waxaan doonayaa ku arko xamal baad imanaysaa halkan wadiic buu la qaatay oo ka hadlaya waxaan dhibaatada taagan 9 kiiba jeeda waxaan tagay xamar January halkaas kitaab uu saaray wartaydi waana ka mid noqday in hagga la galo la iska xiriixo deetana Maxamed Cilmi Samatar oo joogay airportka ayuu yiri in la aado in xashara ku yimid lagu xiri doona qaybta aad degan tahay oo aad dabada caada wixii abaabulay tirkooba ka soo samee saasan ku yimid aan joogay wixii tirkooba wixii janaan in xashara Maxamed Cilmi loo gudbinayay waxa kale oo joogay markaagan oo laga kaxeeyay tigin Maxamed Kaahini ba kamid ahaa aadan shiina joogay Axmed Dayax baa joogay markaas la bilaabi doona wixii ka dambeeya guristooda ninka arkayso oo guraya Cabdilaahi Kaahini leedo
oo sahankaa joogay rag badan baa joogay waay kabacdi waxaa dhacday isla 80kii halkaanoo lixle hortaagan oo joogna ayaa bedelkii lixle la keenay laga bedelay ciidamada laga bedelayba xagee loo bedelay markaasi waxaa la yidhi maxaad tahay yaa ku meelayn doontaa madaxweynaha ku meelayn doonaa kursigaan ku fadhiyan buu yeesu u kacay wuxuu galay wasiirkii gaashaandhiga wuxuu gudbiyey balaaqiisii oo ku yidhi aniga waxay qoratay oo soo tababartay waa seerjito ciidanka xoogga dalka hadday iga maarantay way ruqsaynaysaa anuu ma tegay buu xaqaas ama xooggan ahaanaya ma la ruqsaynayaa deetan wuu soo noqday wuxuu yidhi waad sii baxaysaa oo halkaa ay ku noqo tigidhadeedii aan qaatay waa xusanahay waa laba kacleyntii markuu samayn doono february waan soo duulay halkaan imid hargeysa ku soo noqday muddo yar ka bacdi 80kii dabeeqadeedii ayuu yimi lixle hargeysa soo degay hawshu way sii socotay aadan shiina iyo halkan laga kaxeeyey axmed dagax laga kaxeeyey maxamed cilmi laga kaxeeyey maxamed kaan laga kaxeeyey waa la wada mustaafir waxaasoo dhan xamar markaa waxaa soo baxday shaki ama siro hoose oo tuhul ah ayaa keenaya miyaa bedelka fara badan leh saraakiishii maxamed cilmi iyo maxay ninkii cabdaa kaahin waxaan leeyahay inqalaab baan wadaan bal wiilio inta laska qabtuun baa la mustaafiri kuwan kale markuu gaari yimid bahdo guraaya ayay ahayd idhaafiya oo waa la wada dareeriyey saas loo joogo ayaa 81kii weya inta guursa wax badan aada loo guray ba waxaa soo waxa dhacday ninka la yidhaahdo 82kii horaantiisii ninka la yidhaahdo cabdilaahi saciid oo jooga dharkaygay koralkaas oo maalmaha la dili doono halkan abaabulkuu ka socda ilaa gaaska koowaad ilaa ciidanka lagu taxay oo dhan qaybta dhexe qaybta dhexe koobiyartaan la yidhaahdo waa la isku wada xidhayay maalmaha dilka la doonaya cabdilaahi saciid la doon doono waa maalmaha aadan shiina iyo axmed dagaxay soo galeen hargeysa oo aynan guutooyinkii hayeen iyo xabsida hayeen ayaan xil wareejin ku samaynana bay yimaadeen adigu waa waxay ahayd January 82kii deetana tii alla heedo ninkaana qasab iyo dulmi lagu dilay nimankana markii layli baxa ay hawshooda dhamaysteen baxa la yidhi dawaa baxeen waxay ka tallaabeen xadka 19 December ayay ahayd على جنوري صح أبي استاتيك دبتنا waxay hadeen la baxo bataankii waxa ka horeeyay kuwaas oo bees u ahaa Axmed Cali iyo jabhada oo duriye digtay afraad ay ka mid tahay markay baxeen waxay ku hagaageen dibiile markay tageen Axmed Dagax iyo Allah yarxamu yaa shiina Sheekh Umar Qowdan Sheekh la yiraahdo dibiile jooga ayaa ay tageen sheekha waxa uu diray oo ku hagaajiya ka markay maadeen Sheekh Ibrahim Sheekh Yusuf Sheekh Madar u taga kelimada uu taga Sheekh Ibrahim leeyahay waxa ahayd halkan waxa isku markii hore gudaha wax laga wado bixitaanka xaggaas kala yimaadeen aad shiinayo dibadna halkan markay yimaadeen lixlayo waxay maxay bixitaanka gudaha wax laga wada heelay way warameen دبتنا شيخ إبراهيم بالوتي شيخ إبراهيم الله يرحمه البحر ساسا لو دياري بحين دبتنا شعور بتاعه شعور بين الشوين مدو ما أنتم شعور مدو مي سحوين دقيقة ويدوفين وحتجين إلى عرض سوا وحكسوا كل موتي حكى كحي محمد كاين دبتنا وقت جاء التلامين STF وكهر سلامته ويجوكتي دتنا إثيوبيا كتيري لقبل أبو مانتا أجن دينتهين حيا إلا يسير كجورو حاجة أجن حيك كفرت وجورا أجن حيتن
SNM qolada cusub yaa iskale waa laga raray way soo noqdeen duriyay degeen sidaan xusannahay baysaska October 2018 ayaa la bilaabay in la fidiyo oo duriyo oo dibida ahaan jirtay xarshin oo laga dhigo qaybtan la dego maxay ahayd awaare ilaa bashla kaabakor la dego ilaa baashi gaashaamo saasan su fidiyay baalday deetana ka bacdi ayaayr buu u soo tarmiyay SNM labii static SNM wax yar baahed dugsigu horeeyay Mandheer wuxuu ahaa jinacsane oo laga raray wax loo gudbaa guureyn halkaasaa lagu aabulay ciidamadii SNM waqti bay qaadatay ay aad u rafaaday 2018 2018 tirada SNM 2018 ilaa iyo 2018 waxaan qaamay gaarin 500 ciidanku muu dhaafin يعني مع داسلهودا أفريستيتكي إذا ماذي لبي استيتكي صدق استيتكي وحي لعبوري هلاقودي أي أواري لسوقي وعيد كلاس العالي صدق بقول حقابي هاين وأنا صوت صاري المكا إذا مكا يلا أو فضنا بالي قاشامو مشي كامو بكر أما برا بصو مشي اللي هذا هو لانغيرتا كام هاشين وحجوين حقاب حجوين محل راماله دبيلكا دبيله يباشن لا دوريا إن وهاك إن بل أنت إنك سوق بالمركا إن عبد السلام تركي قور ما يد أدوكو إن قانستين تلاوضات كبرتوسن فكاتك تهلكات سمرت هرت أنت عن بحين لبي استيتكي بشي تون بشي تراي أي أنا يقول كتشرو لأن قبتك أنا الله يرحمه إبراهيم كودبور ومشرحها إن عبد القراش وقبتها الله يرحمه ولدتي وشهيدي داهر دبد ومركا احتياحها ولا احتياحها مركا قاطي يعني وقبتها يعني مسلك الحيانة وأفرح ستيد سلقبتو حالي الغابة وطن وحان الموضوع ولا الحريق قاني بالهرقي وحالت شوقي ما انت على نوكي قاني نلا وطكر بريسكها ده تواني خطوط الله ورستي وحان وحالي ودي لكن إبراهيم قماس بارتين وحان إلا روشبا يا أرضي نمضي إلا وسعن halkii waxa moodna ku waxa sheegaysan oo soo cadeeya dadka telefoonku qabsada wuxuu arintii cirray ku socota waxaan soo saarayaa diyaarada subaxii ee baxsan habeenkii meeshii lagu celiyay Ibrahim Kodor waxaan Allah yarxamhu ruuxii inuu yimid waxa aniga Ibrahim iyo lixle ku heshiinay إبراهيم أنا بحن إبراهيم ولا الدين لما قاضيه حكى له دينية صح ولا قاضيته ذكرها حمر فرهم قال لي واحد داعي ديالك بلن بلة أي داعي اللي مستتكي واي دتنا إرباط خلال قاضي من وناسور الأعضاء إبراهيم واحد سبعة أبقى لها وحاسكور لها iyo waxa ku ogaadeen wada sarkaala waxa la geeyay talsi guud waxa lagu sugayay ikraado abaanduuli ciidanka nala Ahmed Ciriiri Ahmed Saarjan ka ahaa iyo nin korneel ah oo la Cabdilaahi Kahin uu noogay aniga hoggaanka maamulka lacagta waa loo warramay kiba lixii xaga urkii hore isna wuxuu warramay jarankii dadka soo istaagnay waxa maxaad doonaysay maxaad haydeen وأنا هاللي لأنه ولا سوق هذا تمام كورس ما نوضع كل شيء حاجة يمرك فيه كان كي وقع حي قلت أنا عبد الله كان بهذا الحولي وحنا حبس الحولي العكسي من لبقصي
يا لو كروشل ها حبي بلدي كسانيو oo tagay siyaad bare marka cali samatri aaga jira wuxuu ku yiri meesha mana xukuma managa xukumaysa inaan ka yargaane jooga xamar hargeysa jooga inta soo musaafirinay muxuu soo bedelaya adu halkii markii aan go'aan baan gaarnay baxno ilaa aniga waa soo gudbay lacagta sidana maxamed cali oo jooga marka xamar ayaa kulanay isaguna kuma nimada soo qaaday nin walba waxa tiikaaga waka laba koox haysta umada raaca magaalada bax ala baxo waan dareer markay wada baxeen maan saddexaadii afraadii yaana gaarso qaatay gaariga nin baan kala ahaan jiro daahir ilaado kan joogo la xirmar ay gaarigan ii soo qabtay ogaay kare sidaan in wata ina dhigay qaajara gaarigan kale waan soo kaxaysanay aninkii burcan soo galay shanta subaxnimo waan ka dhigay halka leelado shal batroolkii aan dhigay baskii baan kusoo wareegay hargeysa soo galay anigu markaa ilaahi hargeysa maalintii la qabtay ilaahi waxa hal qabtaan yiri underground buu galay ilaahi underground ku jira ayaan soo noqday dadka underground ka gal hargeysa halkiisa aan wadnay aan joogno hawsha wadnay waxaa soo gaari jiray soo noqon jiray axmed leelado xasan Suleymaaniyo الله يرحمه وديته سكر هذا بلع بين ودلي السلام عليكم waxaa noo iman jiraan ku gudaha laga soo geli jiray la Ahmed Umar iyo hoos jeediyo beeska lagu soo raajiyay anaga haayeen arimihii halkan markuu underground galana ina dusay Cabdi Ismaaciil dusay xiriirka magaalada dadka markaa la wareegay waxa dhacday somehow in gaari la dilo mashruuca ayaa la baabulay tiibaan markaa waxa waday Cabdi Ismaaciil oo xashiin qabtay ee ka soo qaatay tiibaan la wadnay adoo soo si waxa dhacday in aan fashiltay markaas anagu baxnay waxa markaa jiray aan baxayo oo go'aan aan qaatay bahado waxa ninka la yiraahdo Ibrahim Khudbur Allah yarxamo iyo maxaa ay gutaale maxamed gutaale raado soo kabtanaha oo sida joogay labada nin baan ahaa backbone-skiga anaga labada markii meel bacay noqotay ay waxay yiraahdeen baxaysan Ibrahim xakuun adigu baxmis ay gutaale jooga halkan jooga lixda markaa u adkaystay inuu bixin waxaan wali wad baxaysan waxa jirtay alaabo halkan looga dirnay nin la yiraahdo Adanderi ya waa inaan u cawaale Adanderi la yiraahdo waa raadi kunta waa walkie talkie iyo talaabo iyo maxaa iyo rakaado wadaasha lagu hadlo alaabtii baa marka waxaan dhacayaa Djibouti baa yimaadeen baa la yiri anigu go'aan waxaan qaatay inaan Djibouti aad ka doono Ethiopia ha geliyo hala ka baxay Djibouti lagu galay marka Djibouti lagu galay khadka lagu sii markaa Hargeysa daloodna ka baxay lugbad kaga baxday daloodna suuxa ka samaray imsa habeen baad sii dhaxday waxaan sii dhaxay ilaahay fududeeyay oo socodkaygu marka kulkuladkay inta saacad 12 saacadood oo socda aad ku gashay Djibouti maxaa kalifay markaa in aad lug ku gasho masaafada inta leego dhowr boqol oo kiiloomitir noqonaysa xadka hadda ka talaabay fudnaan lahayd raadiyaha shaaya qalabka Djibouti in ka qaado dadka Ethiopia ha galo waxa dalbay markaan Djibouti galay waxaan lahayd suuxi dambe marka gaadiidkii ka baqanaysaa inaad raacdo haddana oo la garanayaa halkan ilaa gaaska waa gaas joog jiray wala yaqaana marka magaalooyinka wad ka leexanaysaa waxaan magaalada aragba كم عد أنت دقيقة كو وضو حس أو العيسونا صح هل كاس الكبودة بنجريا ذو تشبه بالبلغة جبت قل وحمضنا بقى نبتنا نكره هذا حسين ميجاك
ayaan habeen saarnay ninkii waxaan ku harabaa ninka la yidhaahdo yaxye qadiimi allah yarxamo yaxye xajibaani iyo qadiimi wii geeyey waan aragnay waxay sheegeen cabdaaska xalo ayuu alaabtii qaado qaahiro u dhoofay ma saas ahaa bes baan ducaakan ka dhoofay aan ku iri aduu halkaasaan ka dhoofay labiisteetankii waxay ahayd November dabeeqadeedii waxaan tegay Jigjiga December iyadoo oo mini congresskii SNM ku leedahay marka ay ka soo noqdeen October ahaan waxay ka soo heshiiska la yiraahdo iskaashiga labada urur oo ay kala saxeexdeen SDF iyo SNM oo Liibiya ka soo noqdeen Liibiya isku soo diiday SNM ayay ahayd markaa kii go'aan baan u qaatay waan baxnay waxaan markii December bay ahayd dhammaadkeedii January 3 shirka arrintii Mandela ayaa dhacday jeex Mandela dadka waxay yimid waan joognay waxaan tagnay bari baa markaa waxa in abaabul la sameeyo dhaqaalaha la sameeyo doonaya markaan tagnay gaashaamo waa isku tagay ciidana SDF ta iyo waxaan ciidamo leenahay in dagaal la wada galo marka SDF maxay haysaa tika ka badan hubkii Liibiya ka xoog weyn hubkii si aad يا سلام كينيا بقول لك كورسو قاقوري لا ساري استا waxay balankiis kaashiga in la fuliyo dibetana halkii baan isku yimid taariikhdu waxa aad weyn in la galo somehow arrintii way socon weyday meesha la yiraahdo Goreexon ayaa Saakiishi iyo wixii joogay ay galeen ayaa ciidanka taxadhay halka laba nin baa ku shahiiday uu horeeyay nin la yiraahdo Hilaac oo ahaa caafimaadka dhaqtarha nin la Maxamed Daare Maxamed Cabdi Qaluf ina Maxamed oo ahaa wakaalada batroolka qaybta tayarada ee waqooyi galbeed haysan jiray laba nin baa ku meesha Allah yarxamo تبتنا هكذا نقول شونا يا محمد حاشي لحلة يا عبدها عسكر هي لين ملا إلى ضوء ضعه أنا فرسني وحنقول أنصني علاش كسا نكرا يحيى ساعة نكرا حيد فاهمها بندو بعد خسارة رياكشن كتشالك عند الخريد تذكر علاش كخريد عمرك حبسك مديرة وتبي لحليو أما منديرة يهكم بقى برجع وفل حري يا سهل كذا يحيد عن دمانة أول فديدي كبعد جدنا حكاسي بعنو نكرر هذا محوها إنه ها باشي إنه رفع الله قالقطة يعني قاضي سوء شركة وحفولي اللي خلي عسكر توصل أنا يحيي حوالي عليه المبسدة والله بيصنع وان صور داقلي بروع عن صوتشان بروع عن صوقل وقرأي قول قابل معه شات كلامنا مركا عيدمدي in dawladdu dhamay iyo xiran yahay waan soo galnay magaalada deetaan magaalada network baa ka xidhnaa oo ah ku lahaa shaqaale leh bacmashtari leh idinka la shaqeynayay markaa meel burcay hargeysa oo xiran yihiin berbera oo jira halkii baan ku soo degnay waxa kamid ahaa rag ma inay tawaaditeen in Cabdullah Khabud oo macallin ahaan jiray waxa kamid ahaa muxuu ahaa hebel aad u badnaayeen macallinkii ninkii burco haystee macallinka ahaa oo ku rigi lagu dilay burco afriyo statekii aqal ku dhow wadadan aqal burco ah ee galay saxanay maalintii dambe waxaa laga keenay nin gaari karistaa wata oo tagsiilaha oo foosta la yidhaahdo waxaa ninkan raacaysa diwaali baan ku raacay oo ku dhacay foosta inaan duhubaysanahay hub sidano wuu ogyahay qorigaygii baa soo duxiyay waa sidana gaari xagga dab ku ridnay
وبندوغي بقى ساري كنترول كبرعه إلا هرقيسة ما لا دوري ولا باطن ما بتركره هو الكنترول برعه خب حسا قالوا لي بدو كيالا الشيخ بدو كي حق هوري حق بدو كيالا دخل بيج بربلاء أفكار لقى بحيو ترى ما راهين marka gaariguna waa gaari lambar shacab leh waa taxi tris bad gashantii marka ciidamada ku socotaa kuma socdo waxaan markaa u martaan dhulka soo martay soo taxi waxa aan ku dhashaysta oo bay xirayeen basta shabaka baxran islamna waa tood dushood ka soo gashay buraac soo galay nin heer jida oo fi suuq dhacayo ayaa la soo raacay oo nin cali baaqul leeyahay walaalihiin Allah سونو صورة حلوة هذا ببلا ما كان صوق الله سياد باس ودقي وبدوي على غد ومكي أفرت شيء بدوي وياه لتنا وضدي وقارد ببلا كان صوق الله هوتيل ببلا كيالا أيام مكسيكية قال لي نكير بان على أتكاي فوستو ونقذيني وانبحني بطرول تقني بلا البشرو بمكي وكيلو وشرو والحصان خميس بعد وأنا لببري ساكيل بقى تعال قاعد صدق أركي قرنا قرنا قال يا كل علي السيمناك بحدها وفيها سياد بالمري بندقي عيري تشكي ها ومخ بندقي قاعد دوره وكتب قالني قور عصر أنا قصو قال لي قصو قال لي وحن شات كقاتل بال هرجيسة هرتيسة شات كقاتل كده كم كاجنو تسيتها ما كان عدنا استعد قال لي وش يعني ها وصو قال لي قاتل بركة قاتي قولي أنسيتك reerkii guriga laga saaro guriga hooyada joogta yaa kula kulmay marka shay oo absalan magacaan la cabdisaan nabixii ayaa jira ayaa heesaa guriga uu soo galo iska warrama nabada kii gaariga waxaan u diray Ibrahim Koodbuur hariyooti hadda askar loo soo socdaa waxaa soo qaaday nin la xariir oo Maxamed Sheekh Ismaan Nuur gabadhiisa qaba iyo kooxaha soo qaaday doonaya halkaasaanu kaas Ibrahim doonay waxay Ibrahim iyo wuxuu tagay leeyahay Axmed Ismaaciil oo baamishriya ayuu sheegay iyaguna way ka hayeen cid dambe hadal soo hadal qaaday Ibrahim gurigu u yimid Ibrahim Koodbuur Allah naxariisto halkii yimid waan shaqay Ibrahim waa soo raasanay Cabdaahi soo socdo Cabdaahi baa habeenkii ugu horeeyay gurigiisa ku degay Ibrahim baa ka soo kaxiyay Ibrahim markuu ina fajig ay guriga fajig u keenay dadna kooxdii magaalada noo joogtay oo rag far badan ahaa oo uu ka mid yahay rag badan asaabtan in la ibn Ahmed Subayr ka mid ahaa Jaafar laba isla magaalada joogay إنك تبلغ نضاء إن حاسيس إيمانه ومحمد الله مصور له وحكم لها إن الشقل له عبد الرحمن يرهن يستدوك سيا سيدا بتن شغالها يسجل يحفظ شغالها يسجل باكم لها أحمد سعيد قابل بعلنها باكم لها أروح إنك حصل جوره oo maqdar asabta gabadha ka mid ahaa network plan magaalada joogay waa hagaag in Cabdisalaam Turki bal qaybta koobaad ee barnaamijkeenan halkaasi ayaynu ku hakin doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo caawadeedoo kale ayaanu idin soo gudbin doonaa qaybta labaad oo aad uga xiiso badan tan waxa la sheekadu inoo joogi doontaa halka hadii Ilaahay raali ka noqdo bal hawlgaladii lagu xuray Cabdulaahi Askar sidii Koodbuur iyo kooxdiisa Cabdisalaam iyo operation halka ka dhacay iyo qaabkay u dhaceen si ku suurta galeen iyo qodobo kale oo xiiso badan ayuu Cabdisalaam Turki inooga sheekan doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo balse caawa waxaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh